السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب كحرن جنال كمركز السود وهذا أدي هذا ومهد سنتين مقال كان وحربا إن إذا كل وذاقه مد كمدا سومالي دي لجوه لي دمبيجي لعقتي مسوق ماسوقة كيس كيف فيدين أو الفيوجر لعقتي لبض بقولي كونتون كمليانة هيد لقول لهم صدي أو شلي لحكومي هذا إمسا سنو أي لجو حكومي إذا ولبا حبسي وجود ديرا إلا يحدد ذاتك لحكومي إسجل لجو ردي محييهن دمبيدا لجوه لي isagoo dambiyada ugu badan ay isaga ahaayeen qofka lagu helay shalay maxkamadda muxuu ka horyay muxuu raali gelin ka bixiyay muxuu raali gelin uusan ka bixin garsoorahaasi maxay ku tiri markii la xukumayay ninkaasi dhalinyarada ah ee Soomaalida ah waa qofkii saddexaad oo Soomaali ah oo la xukumo labada kale waan idila wadaagi doona hore loo xukumay iyo xeer ilaalinta ku howlan aan dacwad ku soo oogida dadka kiiskan musuq maasuqa ku eedeysan oo sheegay in lacagta 250 milyan ahaydba oo la lunsaday ay hadda gaari karto 300 milyan ilaa iyo 400 milyan maxay yihiin dadka cusub ee dacwadda lagu soo oogay iyo dadka kale ee la baarayo arrimahaas oo ayaan idin la wadaagayaa balse marka hore soo fiidina war future ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ama qayb ka mid ah gobolka Minnesota lacagtii loogu talagalay in caruurta lagu qoodiyo xilligii coronavirus uu jiray markii iskuuladu ay xirnaayeen oo hay'adda aan faa'iido doonka ahayn ama ururka aan faa'iido doonka ahayn ee Feeding Our Future ay wasaaradda waxbarashadu ay u soo marinaysay isla markaana laga faa'iideystay oo lacagahaasi la xaday jaabkana la isaga shubtay la musuq maasuqay ayaa waxa jirtay in baaritaan lagu bilaabay dad hadda tiradooda ay marayso 73 qofna dacwad lagu soo oogay walow intooda badan 50 qof ka badan ay dambigooda qirteen marka dadkii la maxkamadeeyay oo dambiga lagu helay ayaa xukunkoodii uu socdaa oo midba mar la xukumaya shalay garsoore Nancy Brazel oo iyadoo maxkamadda federaalka fadhiisay isla markaana xukunka ku ridaysay dadkan dambiyada lagu helay ayaa shalay Cabdicasiis Faarax oo 36 jir ah waxay ku riday xukunkii ugu dheeraa ee lagu rido ilaa ay hadda dadka dambiga kiiskan Feeding Our Future ee lacagtaasi 250 milyan ahayd lagu lunsaday Cabdicasiis Faarax waxaa lagu xukumay 28 sano oo xabsi ah waana ninka dambiyada ugu badan lagu helay 7 qof ee la maxkamadeeyay in horaantii sanadkii 2024 intii u dhaxaysay April ilaa iyo June Cabdicasiis waxaa lagu helay 24 dambi ayuu ku eedeysnaa laakiin 23 kamid ayaa lagu helay waxa uu ahaa ninka dambiyada ugu badan lagu helay xabsiga ugu badanna hadda isaga ayaa mutaystay ilaa iyo hadda dadka la xukumay oo 28 sano oo xabsi ah ayaa lagu xukumay waxa dacwadoogayaashu ay sheegeen Cabdicasiis in uu kamid ahaa dadkii ugu horeeyay ee bilaabay in ay cunto siiyaan caruurta sida ay sheeganayeen waxana ay sheegeen inuu kiiskan hormuud uu ka ahaa musuq maasuqa isaga haweeneyda madaxda ka ahayd ururka Feeding Our Future Amy Bag iyo sidoo kalena Salman Saeed oo isaguna isaga iyo Amy Bagna dambi lagu helay bishii March 19 iyaguna hadda xukun sugayaal ay yihiin marka waxa ay dacwadoogayaashu ay sheegeen inuu kamid ahaa dadkii ugu horeeyay ee bilaabay musuq maasuqan dad kalena ku soo daray oo soo galiyay arrintan marka 7 qof ee horaantii sanadkii hore la maxkamadeeyay waxay ku eedeysnaayeen nuusashada ku dhawaada ilaa iyo 50 milyan oo dollar laakiin Cabdicasiis gaar ahaan waxa ay isaga iyo waliba nin kale oo la xukumay oo isaguna Maxamed Jaamac Ismaaciil la yiraahdo oo bishii October ee sanadkii hore la xukumay ay isla lahaayeen maqaayadda la yiraahdo Empire Cuisine Market oo ku taala Shakopee halkaas oo sheeganayeen in cunto ay ku bixinayeen Cabdicasiis sidoo kale waxyaabaha lagu eedeynay waxa kamid ah meelo banaan oo cidlaah inuu dhahayay cunto ayaan caruur ku siinayay marka 8 milyan oo dollar ayaa isaga lagu eedeynayay xiraalyaha dacwadan la socday oo la yiraahdo Joe Thompson waxa uu sheegay in Cabdicasiis uu qaatay malaayiin dollar ka sukow waxa jirta in lacago uu diray wadanka dibadiisa sida Kenya oo kale marka lacagihii wadanka dibadiisa uu diray lama soo celi karo waxana xiraalyuhu sheegay Cabdicasiis xitaa hadii uu xabsiga ka soo baxo isagoo milyaneer ah in uu ka soo baxayo waxana kamid ah in maadaama hantidaasi aan la soo celin karin wadanka dibadiisa lacagihii uu diray oo Nairobi Kenya ay kamid tahay in guryo apartmentiyo ilaa iyo
12 dabaqa uu ka dhistay waxaa dib looga soo celiyay hantidii Mareykanka uu ku lahaa. waxaa kamid ah hantida Cabdicasiis laga soo celiyay 5 gaari oo kuwa raaxada oo qaarkood hadda ay idin muuqdaan, guriyihii uu ka iibsaday Mareykanka, iyo sidoo kalena guri kale oo isagu aad u weyn oo ku yaala Briar Lake, isla markaana harada ama lake-ta eegaya uu doonayo qorsheynayay in malaayiin dollar uu ku dhiso, isagana waa laga soo celiyay. marka waxa ay leeyihiin Cabdicasiis hantidii wadanka dibadiisa uu diray lama soo celin karo, laakiin gudaha wadanka intii tiilay ayaa dib loo soo celiyay. marka Cabdicasiis waxa uu raali gelin ka bixiyay arinta la xiriirta laaluushkii. waxaan ognahay kiisku markii uu dhammaan rabay todobadaasi Soomaalida oo dhalinyarada ah lagu soo eedeeyay in mid kamid ah xeerbeegtidii lacag $120,000 oo laaluusha gurigeeda loogu geeyay, laakiin ay iska diiday. markii dambana loo soo xiray gabar la yiraahdo Laban Maxamed oo Seattle Washington uga timid lacagtaasi si xeerbeegtida ay ugu geyso Cabdicasiis walaalkii oo Cabdikariim la yiraahdo, iyo waliba walaalkii kale oo la yiraahdo Saciid Faarax oo isagana dambiga kiiska Freedom of Future lagu waayay, laakiin haddana ay saacado yar iyadoo uga dhiman tahay in la yiraahdo dambi ma lihid 9 dambi uu ku eedeysnaa, haddana kiiskaasi laaluushka gacanta la galay. 3 walaalo ah ayaa marka hadda u xiran. Cabdicasiis waa la xukumay, Saciid iyo Cabdikariimna waxay iyaguna qirteen dambigoodii laaluushka, iyaguna waa xukun sugayaal. waxaana ku weheliyay Cabdimajiid oo isagana kamid ahaa dadka lagu helay dambiga kiiska Freedom of Future, 5 qof ee dambiga lagu helay, haddana laaluushkaasi ku lug lahaaday dambigeedana qirtay. marka iyaguna kiiskaasi waa xukun sugayaal. Cabdicasiis marka waxa u dheer in hadda 8 ilaa 10 sano oo kale uu kiiskaasi laaluushka uu ku muteysan karo in xabsi uu ku galo. marka Cabdicasiis markii shalay la xukumayay waxaa loo ogolaaday in maxkamadda uu ka hor hadlo, isagoo uu ilimeynaya waliba qoyskiisa, saaxiibadii iyo ehelkiisa ay maxkamadda ay joogeen. ayaa garsoole Nancy Braser waxa uu ka hor sheegay ama uu ka hor hadlay, waxaana uu raali gelin ka bixiyay qaar kamida dambiyadii lagu soo eeday. waxa uu yiri waxaan raali gelin siinayaa xaaskayga iyo caruurteyda, waxa aan qirsanahay tilaabooyinka aan sameeyay inay ahaayeen kuwa qoyskayga dhismihiisiiba aan ku burburiyay. waxa uu sidoo kale sheegay Cabdicasiis oo 2 sano ee la soo dhaafay xabsiga Sherborne 22 bilood ku jiray in uusan arkin in xaaskiisa iyo waliba caruurtiisa 2 sano ee la soo dhaafay. waxa uu sheegay in aysan u suura gelin xitaa inuu arko ilmihiisa midka ugu yar oo dhashay intii xabsiga uu ku jiray 2 sanana uusan arkin. ka hor inta aan la xirin ayaa ilmihiisa ugu yar uu dhashay. marka waxa uu yiri waxaan doonayaa inaan iraado waan ka xumahay, wax kasta oo aan sameeyay waan burburiyay ayuu yiri, wax kasta oo aan soo shaqaystay, waxaana aan seegay guulo fara badan oo qoyskayga ah oo aan miiskareeyay. marka waxa uu leeyahay aad ayaan uga shalaynayaa maalin kasta, mana u qalmaan ayuu yiri qoyskayga inaan sidaasi ku sameeyo. arrintaasi qoyskiisa ayuu intaasi uu raali gelin uu ku siiyay. garsoore Nancy Braser ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay Cabdicasiis iyadoo la hadlaysay, waxa ay tiri Cabdicasiis Faarax waxa uu ku guuleystay American Dream siyaabo kala duwan ayaa loo micnayaa, laakiin dadka wadankan soo galootiga ku ah American Dream waxay tahay qofku wadankan inuu yimaado ama uu wax ka barto ama inta uu shaqaysto ganacsi furto uu qof guuleystay noqdo. marka waxay tiri Cabdicasiis waxa uu ku guuleystay riyadii Mareykanka uu yimid oo qaxooti ahaan wadankan looga soo waday xeryaha qaxootiga lagu keenay. college degree ayuu helay oo macnaha jaamacad ayuu ka baxay, waxaana uu bilaabay ganacsi yar oo isagu uu leeyahay. laakiin markii xilliga coronavirus-ka uu bilowday, dadna isaga caawinaad u soo raadsadeen, isaguna waxa uu raadsaday in isagu uu taajir uu iska dhigo, noloshiisa taajir ka dhigo. marka Cabdicasiis Faarax waxa lagu eedeynayaa lacagta $8 milyan inuu isagu qaatay, gawaari raaxo uu ku gatay, fasax vacation oo ku aaday wadanka Imaaraadka Carabta, Nairobi Kenya guri 12 dabaqa uu ka dhistay. sidaas darteed marka Cabdicasiis waxa uu sidoo kale bishii June ee sanadkii hore uu qirtay dambigii la xiriiray laaluushkii loo geeyay xeerbeegtada. sida ay sheegayna 8 ilaa 10 sano oo kale ayaa ku kordhi karta xabsigiisa, maadaama hadda 28 sano lagu xukumay, 2 sano
sano ayaa laga jaraya oo hadda xabsiga uu ku soo qaatay 26 sano marka haddii 8 ama loogu daro ama 10 sano kale xabsiga ayaa ku sii dheeraanaya cabdicasiis sidoo kale waxa uu raaligelin ka bixiyay doorka uu ku lahaa laaluushkaasi loo geeyay xeerbeegtida waxa uu yiri arrintaasi waan qalqalay oo waan cabsaday sidoo kalena depression iyo walaac fara badan ayaa igu furnaa marka waxa uu yiri waxaan burburiyay bulshadeyda waxaana hoos u dhigay ayuu yiri gobolkayga iyo waliba xeerka cadaaladda ee gobolka Minnesota kuwaasi oo iga badbaadiyay qaxootiyada xiriirka qaxootiyada iga keenay marka wuxuu yiri si dhab ah ayaan uga shalaynaya tilaabooyinka qaaday qalad ayayna ahayd inaan sameeyo marka garsoore Nancy Brazel oo la hadlaysay Cabdicasiis mar kale inta aysan xukumin ayaa waxa ay tiri waan u jeedaa inaad raali gelisay qoyskaada iyo waliba bulshadaada Soomaalida iyo sidoo kale inaad raaligelin ka bixisay ku lug lahaashahadii lacagtii laaluushka ee xeerbeegtida loo geeyay laakiin waxay tiri ma aanan ka maqlin arrinta dhabta ah ama dambiga dhabta ah ee maanta halkan aan u joogno oo aan doonayo maanta inaan kugu xukumo marka lacagtii aad luusatay wax raaligelina ma aadan ka bixin ayay garsoore Nancy Brazel ay ku tiri Cabdicasiis inta aysan xukumin waxa dacwadayaashu ay soo jeediyeen in 30 sano lagu xukumo laakiin garsooruhu waxa ay go'aansatay in 28 sano ay ku xukunto maxaa yeelay xilli coronavirus uu jiray ayuu ka faa'iideystay dadkii loo baahnaa inuu caawiyo ayay intaasi ku dartay waxa marka Cabdicasiis waxa uu noqonayaa qofkii saddexaad ee Soomaaliya ee kiiska Feeding Our Future lagu xukumo isla markaana kamid ah 5 qof ee dambiga lagu helay bishii June ee sanadkii 2024 bishii October 15 sanadkii 2024 Maxamed Jaamac Ismaaciil oo isagana 3 dambi lagu helay 4 dambi uu ku eedeysnaa ayaa 12 sano oo xabsiga lagu xukumay marka Maxamed Jaamac Ismaaciil iyo Cabdicasiis waxa ay wada lahaayeen oo ay shirka ku hayeen maqaayada Empire Casino Market oo Shakabi ku taala sidoo kale bishii January oo horaantii sanadkan 24keedii waxa isagana 210 bilood lagu xukumay 17 sano iyo bar oo xabsi ah Muqtaar Maxamed Shariif oo isagana 6 dambi oo lagu soo eedeeyay 4 kamida lagu helay marka saddexdaas qof oo Soomaalida ah ayaa ilaa iyo hadda loo xukumay kiiskii Feeding Our Future walow ay jireen dad kale oo iyagu dambayadooda qirtay oo la xukumay laakiin xeerlaaliyaha kiiskan ku lug la waxa uu sheegay baaritaanku inuu wali socdo waxa sidoo kale jira ayuu yiri in ay jiraan urur la yiraahdo aan faa'iido doonayo oo la yiraahdo Partners for Nutrition oo iyagana lacag fara badan lunsaday oo hadda baaritaan uu ku socdo waxa jirtay sidoo kale in qof cusub uu ku soo biiray oo Soomaali ah dadka iyaguna arrintan dacwada lagu soo ogayo hadda 73 qof ay marayaan guud ahaan Xuseen Maxamed Faarax oo isagu madax ka ahaa urur aan faa'iido doonayo oo la yiraahdo New Vision Foundation ayaa sidoo kale isagana oo St Paul ku yaala waxa lagu soo ogay hal dambi oo ah lacag isku diris waxana uu sidoo kale uu sheegay in 2 goobood oo kala duwan uu cunto ku bixinay intii u dhaxaysay bishii February ee sanadkii 2021 ilaa iyo sanadkii bishii January ee sanadkii 2022 lacag 2.7 milyan oo dollar oo lunsaday oo sheegay inuu caruur cunto ku siinayay marka waxa uu noqonayaa qofkii 73aad ee lagu soo ogo marka waxa xeerlaaliyaha kiiskan ku howlan baaritaankiisa uu leeyahay lacagta la lunsaday waxa ay gaari kartaa 300 milyan ilaa 400 milyan welina baaritaanka waa socdaa dad cusub ayaana laga yaabaa in dambiye kala duwan lagu soo ogo marka arimahaasi ayaan rabay inaan dalo socodsiiyo Cabdicasiis xukunkaas 28 sano ee ku dhacay aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta